السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك الساد جوبتان كسو دوالة وررك سمريب تي في قبل وررك أمانتا إذن هاينا يا واحد كميدا مدعوين فرماجو وسميي تلابوك وغفر مريو مشرح حسن علي خير سراكي الشباب قبل سنة كراحيدا أو لقود اللي جلب خيدو لزار الروبلي وحكا بدلي قرشيه سفرك إقل مدتق بسدي جاري دad shacaba ay saxmaayeen iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo booqday magaalada Makalle ee maamulka Tigreega xildhibaanada salaad oo baa ku jeediyay ra'iisul wasaare Roble waa maalinimo asniina taariikhdu ay ku beegan tahay 14 December 2020 daawada hadda nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar gambalka furo si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee halkan aan soo dhigno ayna ku bilaawne ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ayaa markale howlgallo qorsheysan ka fuliyay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe howlgallada ay barbar socdeen duqeymo ayaa waxa lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa gudaha degmadaasi saraakiil ka tirsan ciidamada commandoska danab oo la hadlay warbaahinta codka ciidamada ayaa sheegay in howlgalladaasi ay ku dileen saraakiil al-shabaab u qaabilsanayd qaraxyada gaar ahaan jaakadaha qaraxyada iyo suumanka la isku xiro magacyada saraakiisha la dilay ayaa waxa lagu kala sheegay Muxsin Aliyow oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo Maxamed Sheekh oo qaabilsan farsamaynta jaakadaha iyo suumanka ay al-shabaab u adeegsadaan isqarxinta iyo laba sarkaal oo kale oo lagu sheegay warka ka soo baxay saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya sidoo kale saraakiisha ay antaasi ku daray in ujeedka duqeymaha iyo howlgallada ka socda jubbooyinka ay tahay sidii looga hortagi lahaa weerarada al-shabaab dhawaan ayay ahayd markii duqeyn uu Mareykanka ka fuliyay degmada Jilib lagu dilay ku dhawaad 10 xubnood oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab rax nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa saakay lala eegtay kolonyo gaadiid ah ay wateen ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM kuwaas oo marayay inta u dhaxaysa xaafadda Jamhuuriya iyo masjidka Turkiga ee ku yaala degmada Karaan dadka deegaanka ayaa ku waramaya in qaraxa miino markii lala eegtay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Burundi ay fureen rasaas xoogan oo cabsi badan ku beertay dadka degan xaafadaha Karaan qaraxa miinada ee lala eegtay ciidamada AMISOM ayaa la ogeyn in khasaaro ka soo gaaray kolonyadii ciidamada AMISOM waxaana rasaasta ay fureen ciidamada AMISOM la sheegay in waxyeelo gaarsiiyay dadka agdhawaa halka lagu qarxiyay ciidamada AMISOM ayaa bishii hore isla goobtan lagu qarxiyay waxaana rasaas ay xilligaas fureen ciidamada AMISOM ku dhintay dad shacab ah ciidamada AMISOM ayaana rasaas aan loo meeldayin ka fura markii qaraxyada lala eegto bulshada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa booqashadiisa ugu horeysay ku tagay caasimadda gobolka Tigray ee Makalle tan iyo intii uu amray howlgalka militari ee ka dhanka ahaa gobolkaasi Abiy Ahmed ayaa ka qayb galay kulankii ugu horeeyay ay yeeshaan golaha cusub ee loo dhisay in ay gobolkaas hogaamiyaan dhanka kale waxa uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya kulan la qaatay digiisa dalka Suudaan Abdalla Hamdok sirgaal u hadlay xukuumadda Suudaan ayaa sheegay in Mr Hamdok uu diyaar u yahay in uu dhaxdhaxaadiyo labada dhinac ee Itoobiya isku haya balse bayaan uu soo saaray Mr Abiy lagama xusin dhaxdhaxaadin ay jirto Mr Abiy ayaa bayaankiisa ku sheegay in wafdiga Suudaan ay taageereen talaabadii militari ay dawladda dhexe ka qaadaday gobolka Tigray ee ku yaala waqooyiga Itoobiya dalka Suudaan ayaa waxa uu qaxay 50,000 oo ah qaxootiga ka barakacay dagaalka gobolka Tigray horaantii bishii November ayay ahayd markii duulaan uu amray ra'iisul wasaare Abiy lagu qaaday gobolka Tigray ra'iisul wasaare Roble oo lagu waday in safarkiisa Galmudug uu ku soo bilaabo magaalada Gaalkacyo ayaa loo bedelay magaalada Dhuusamareeb oo uu ka digi doono saacadaha soo socda warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor uu dalbaday in ra'iisul wasaare Roble uu caasimadda ka bilaabo safarkiisa Galmudug halka ra'iisul wasaaruhu uu qorsheynayay in uu ka soo bilaabo magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug Maxamed Xuseen Roble oo Garowe u tagay halka siyaasadda la isku manleeyahay ayaana ka soo hooynin wax natiijo waxaana la sheegayaa in dhammaan waxyaabihii muhiimka ahaa lagu kala tagay safarka Galmudug ayaa quseeya arrimaha doorashada sida ay xogtu ku helnay warbaahinta Samareeb faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya gaari ay la socdeen dad shacab ah oo saacadihii la soo dhaafay dab xoogan ku qabsaday qaybo ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya
gaariga oo ahaa Leyl Calaawi isla markaana siday rakaab ayaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeday dhanka magaalada Gaalkacyo. Wararka ayaa sheegaya in gaariga uu qabsaday dab xilli uu marayay deegaanka Law Saddex Xiglo oo ka tirsan gobolka Mudug. Ugu yaraan 2 ruux ayaa ku geeriyootay dhacdadaas iyadoo ay ku dhaawacmeen 5 kale oo dhammaan ka mid ah rakaabkii la socday gaariga gubtay. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dabka uu ka dhashay gaariga kadib markii uu kululaaday matoorka. Dadka dhaawacyada ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo oo haatan lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad. Xukuumadda Kenya ayaa sheegtay inay ka digayso suurtagalnimada weeraro dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka geystaan Kenya maalimaha ciidda Christmaska. Bayaan ay soo saartay booliiska Kenya ayaa lagu sheegay in tiro badan Al-Shabaab ay gudaha u soo galeen Kenya saacadihii ugu dambeeyay si ay weeraro ugu geystaan deegaanada ku dhiirsan xadka Soomaaliya iyo Kenya. Bayaanka booliiska Kenya ayaa lagu sheegay in 40 dagaalamayaasha Al-Shabaab ay tilmaamaysan doonaan deegaanada Amuma, Hami iyo magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ee xadka Soomaaliya. Booliiska ayaa dadka deegaankaasi ku nool ay u sheegeen feejignaan lana shaqeeyaan ciidanka ammaanka ee la dagaalanka argagixisada. Saraakiisha booliiska ee dalka Kenya ayaa shacabka ku dhaqan deegaanada xadka ugu baaqay in ay feejignaadaan weerarada Al-Shabaab ay doonayaan in ay ka fuliyaan Kenya. Kenya ayaa bilihii ugu dambeeyay si kordhisay feejignaanta iyo walaaca ay ka qabto Al-Shabaab waxaana ay ciidamo dheeraad ah marba marka ka dambaysa geynaysa soodinta labada dal. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay weerar khasaaro badan dhaliyay ay ka fuliyaan deegaano hor leh oo ka tirsan dalka Kenya. Hogaamiyaasha isbahaysi ka soo horjeeda dowladda Pakistan ayaa taageerayaashiisa ku booriyay Axaddii inay ku biiraan dibadbax ballaaran oo lagu tagayo caasimadda Islamabad bilaha soo socda si loo dalbo inuu xukunka ka digo Ra'iisul Wasaare Imran Khan. Isbahaysiga oo ka kooban 12 xisbi lana baxay dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Pakistan BDM ayaa sheegay in Khan ay xukunka ku keeneen militariga doorasho lagu shubtay oo dhacday 2018. Isbahaysiga ayaa waday dibadbaxyo ballaaran tan iyo markii loo aasaasay bishii Sebtembar inay xukunka ka tuuraan Khan isla markaana ay joojiyaan fargelin militariga ee siyaasadda. Waqti wadahadalka uu dhammaaday waxaa hadda jira doona dibadbax. Waxaa sidaas yiri hogaamiyaha mucaaradka Bilawal Bhutto Zardari oo ah wiilka ra'iisul wasaarihii la dilay ee dalkaas Benazir Bhutto. Waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada wadahadal ay la galaan Khan ama militariga in doorasho cusub lagu dhawaaqo mooye. Khan oo sheegay in ololaha dibadbaxayaasha looga gol leeyahay in lagu qasbo inuu laalo dacwado musuqmaasuq oo ka dhana hogaamiyaasha mucaaradka ayaa cambaariyay dibadbaxyada oo ka soo beegmay xilli uu jiro cudurka COVID-19. Khan iyo militariga waa ay beeniyeen eedeymaha ay soo jeediyeen isbahaysiga. Waxaa lagu wadaa in maanta kulmaan ergada doorashada ee Mareykanka isla markaana ay si rasmi ah ugu codeeyaan in Joe Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga uu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa doorta ergo loo yaqaano Electoral College kuwaasi oo shacabka ay ku soo doorteen doorashadii madaxweyne ee dhacday 3 November. Tartanka madaxtinimada ee Mareykanka ayaan dhameystirnayn ilaa ay ergada doorashada laga soo xulay dhammaan 50 gobol ee dalka Mareykanka uu ka kooban yahay, iyadoo dhammaan gobolada ay bixiyeen shahaadada qirista natiijooyinka doorashada. Biden ayaa ku guuleystay 306 codadka ergada doorashada, taasi oo 36 ka badan tirada uu u baahan yahay in uu madaxweyne ku noqdo oo ah 276 halka uu Trump helay 232. Codeynta maanta ayaa imaanaysa iyada oo madaxweyne Donald Trump uu weli sii wado in uu dafiro natiijooyinka doorashadii isla markaana uu diidan yahay inuu aqbalo in lagu heshiiyey doorashada.